السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. weli waxaa inoo socdo casharadii taxanaha ahaa aan ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada jooga wadamada qurbaha inay kaga faa'iidaystaan dalalkan Englishka looga hadlin haddii ahaan lahaayeen wadamada Carabta iyo kuwa Scandinavian-ka ee Englishka looga hadlin. So casharkan sida hortiina ka muuqato waa weli qaybtii isbarashada ayaan ku jirnaa ama sorry waa qaybtii sida dadka isu salaami lahaayeen cashirka ayuu ahaa isbarashada kana waa markii qofka aad la kulanto sida u salaami lahayd sida hortiina ka muuqataba how are you markaa qofka aad rabto inaad wareysataan ama aad wareysataan xaaladiisa qofka ayaa loo isticmaalaa marka read aqri and listen dhegeyso read aqri and listen dhegeyso marka labada qof oo hortooda ka muuqato wiilkan iyo gabadhan hore ay soo barteen casharadii hore هذا عشر كامل كواي كل من والسلام عليكم. And hi John, how are you? Hi John, how are you? And John said hi. Hi John, how are you? John said hi. Fine, thank you. Sandra and you. Fine, thank you. وفي عنا هاي وأنا مع Sandra and you أديني. I'm okay, thank you. أنا يروح في عنا هاي ومع Sandra. أنا كوعديو. Hi John, how are you? And John sidee tahay? Fine, thanks. Waa fiicanahay, waad wanaagsan tahay, Sandra. And you, adigani? I am okay, thanks. So marka qofka aad la hadlayso aad rabto inaad salaanto qofka marka hore magaciisa sheeg hi meeshan qofka magaciisa ku bedel anigana hi Ali, how are you? And then fine, thanks. Asha, and you? I am okay, thanks. So marka meeshaan labada qof magacooda galayo si kala dheh hi Abdi, how are you? Fine, thanks. Rahma, and you? I'm okay, thanks. So marka waxaan filaya inaad fahanteen oo qofka marka ugu horeeya aad la kulanto how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Marka waa marka laba iyo dhidig ay ahaayeen marka dhinaca kale aad fiiriso oo labadan wiil oo ayagana isbaranayo Hello Hero, how are you? Hello Hero, how are you? And then very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. And Hero sidee tahay? Very well, aad u fiican. Kii waxay ahayd fine. So fine iyo very well waa isla micno. Very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. So qof markuu ku dhaho how are you? Waxaa ku banaan dhahdo fine. Waxaa kaloo ku banaan dhahdo very well, thanks. And you? I'm okay, I'm fine, thanks. Markuu celiyo hello Hero. So meesha magaca doonta ay ku bedeli kartaa adiga kartaa hello Abdi, how are you? And then very well, thanks. And you? aad u fiicanahay waa mahadsan tahay adigana I'm fine, thanks. aniguna waa fiicanahay waa mahadsan tahay marka la ku celiyo hello Hero, how are you? sidee tahay? Very well, aad u fiicanahay, thanks. waa mahadsan tahay. And you? adigana I'm fine, thanks. anigana waa fiicanahay. waxaan filaa inaad fahanteen markii qaybtan hoose waa qaybtii laga shaqeynayay listen and repeat, answer your teacher, stand up and practice. marka ugu jawaab macalinkaaga marka ereygan listen waa dhegeyso soo qofka markaa la hadlayso ama uu ku dhegeysan waayo waxaa dhehaysaa listen, repeatna waxaa waay kusoo celi. So answer ka jawaab your answer your teacher macalinka uu jawaab stand up istaag and practice oo ku celceli. Hi, so meesha waxaa galaya qofka magaciisa hi Ali, hi Abdi, hi Asha, hi Rahma. So magacaanta meeshan gelinaysaa hi hello, how are you? wuxuu dhahaa fine, thanks. waan fiicanahay hebel. And you? adigana marka fine, thanks. Asha oo Ali oo Abdi. And you? adigana okay, thanks waa dhihi kartaa. Fine, thanks waa dhihi kartaa. Very well, thanks waa dhihi kartaa. inta waa isla micno marka okay, thanks. Fine waa fiicanahay, thanks. waa mahadsan tahay. Very well, aad u fiicanahay, thanks. waa mahadsan tahay. aan ku celiyo so listen dhegeyso, listen dhegeyso and repeat oo kusoo celi. Repeat kusoo celi. Answer ka jawaab your teacher ana macalinka ugu jawaab. Stand up istaag and practice ku celceli. Hi meesha qofka magaciisa geli Abdi oo Asho oo Rahmo, how are you? Abdiyo sidee tahay? Hi Asha, how are you? Hi Rahmo, how are you? Fine, thanks. waa fiicanahay aad u mahadsan tahay.
qof kale magaciisa sloganka asad safiya whatever and you adigani okay thanks fine thanks very well thanks. marka laga hadlayo dhinacan kale grammarka grammarka waxaa loo yaqaanaa waa naxwaha oo englishka marka right I am or are am is are I am meesha marka waxaa gelaya I am Sandra how are you this is John am iyo is iyo are so is waxaa am waxaa qaato I is waxaa qaato she iyo he iyo it arna waxaa qaato we iyo you iyo they so saddex isay qaataan saddex are ay qaataan halna m ayaa qaataa saddexda is qaato waa kuwe waa he waa she waa it is ayay qaataan we iyo you iyo they are ayay qaataan I am ayay qaataan so hadda maadaama I meesha ay taalo I am Sandra aniga waxaan ahay Sandra so waxaa dhigi kartaa I am Ali I am Abdi I am Asha I am Rahma then how maadaama aan sheegna are inay you qaadato how are you sidee tahay so this is John kani waa John waxaan filaa inaad fahanteen waad ka faa'iidaysan doontaan hada billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh